بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لي الوايد سلامي مقعي عبد الرزاق أما كبحي سدا وتقانو وحان ربا مانتا إن أن هلكن يدين كسو قد بيا أرين أن حالي كهور جواي أو مروغا يحنون بدن له أو كد عضي أسبوع عن هدان أن كجرنا أمسير دمانا يو مقالة جارس إن وحاد عضي جبر heer gaaris ah oo libooyo ka soo jeedo iyo maama ay qaraabo yihiin ayaa meel saaluun ah waxay ka qaateen taxi saxiida ama brobox nooca u taqaano taxiga waxaa waday gabdhaha waa ogaadeen waa cawliyahan heebtooda maamada iyo gabadha ninka gaariga leh ama watana waa nin asagana cawliyahan ah xaafadii meel saaluun ay maamada gabadha ku soo martay markii hore ay kaga tagtay suuqay wax u doonatay way soo noqotay markay gabadha qaaday oo xaafadoodii tageen oo damacday inay degto maamadii ay degtay gabadhina ay damacday inay degto ay wuxuu yiri wax yar iga raali noqo jidka aan ka baxee albaabka soo xir gabadhi albaabkii ay saa u soo xirtay ee isleed ninka gaariga taxiga ka bixiyo jidka aad ka degtid uu la cararay meel dadka reer gaaris baa garanayaana far yar la yiraaho oo dhowr kiiloomitir magaalada u jirtuu la tagay wuxuu soo wacay rag kale laba nin oo mooto saaran baa u timid haddana laba nin oo gaari kaloo kii asagu wato kala brobox u timid asagoo gabadhi toori ku hayo gabadhi habeenkii 5 nin ayaa kufsaday si xun ayaynu u kufsadeen way ku noqnoqdeen way silciyeen way saxariiriyeen nimanka heebtoodu waa cawliyahan 4 ka mid ah 4 nin oo ka mid ah nimanku waa ogaadeen waa cawliyahan gabadhina waa cawliyahan ninna waa bahgeri waa ogaadeen waa bahgeri laba nin waa isku qoys oo cawliyahan hal qoys bay ka wada yihiin laba qoys oo cawliyahan ka mid ay ka kala imaadeen nasiib wanaag maamadii gaariga markuu ninka la sii carray lambarkii bay qabatay waa la report gareeyay qaraabadii iyo dadkii baa la wacay meel walba laga dayay nin markay silciyeen ay ku noqnoqdeen oo dileen oo saxariiriyeen ayay laamiga ku soo tuureen oo salaad subax soo dhawday way carareen dhagaxley bay galeen waa la traagareeyay gaariga lambarkiisa maadaama la helay gaariga dhagaxley uu ka soo baxay maalin dambe ninkii gaariga lahaa iyo ninkii bahgeri labadaas ku jireen dhagaxley waxa loo istaagay moodhikarey wala soo raacay buula madiina bay tageen midkii gaariga lahaa wuu cararay oo wuu degay wuu siray kanuu gaariga u dhiibay kiibaa gaariga lagu qabtay kiibaa maxaa la dhihi jiray intuu xirnaa kii bahgeri kuwii cawliyahan odayaashoodii baa imaadeen waxay dhaheen maslaxa yaan rabnaa wixii inaan ku dhammeeno waa la wada fariistay waxbaa la isku afgartay laakiin dambiilayaashii weli cadaalad gabadhi may helin dambiilayaashii weli dembigii lagama oofin waxaan ku soo socdo oo laxawga iga qabtay dhibaatooyinkan way soo noqnoqdaan way badan yihiin laakiin lama sheego waxaan idiin sheegi doonaa arrimo kale oo fool xun oo dhacay oo sidaasoo kale odayaal intay is hor fariistaan wax yar oo maslaxa la kala qaato sidaana lagu iloobo waxaa dhacday sidaan ognahay mid dugsi ilmo u dhigayay waa hore waad ogeedeen inuu gabdho kufsaday waxaa dhacday tuulo gaaris tuulooyinka hoos yimaada ka mid ah laba gabdhood oo mid 9 sano jirto iyo mid 8 sano jirto ayaa mid qandha iyo xanuun ka bixi waysay arigii bay raaci waysay tii 9 jirka ahayd waa laga reebay arigii tu 8 jir la raaciyay maalmo kadib ayadana qandhadii iyo xanuunkii baa qabtay waxaa la ogaaday in nin buuladaas ama maxaa la dhihi jiray tuuladaa degan uu ka daba bixi jiray oo tii horena uu kufsanayay muddo tanna uu kufsaday oo uu silciyey cadaalad may helin gabdhihii maynan helin ilaa hadda ninkina tuuladii buu joogaa mid kale
tuulooyinka Gaarisa hoos yimaada ka mid ah wuxuu sameeyey ilmihii uu dugsiga u dhigayay gabdhihii xaafadda oo quraanka uu dhigayay oo quraankiiba dhameeyay mar labaadna dhameenayo ayuu uurayay mid 2 3 4 buu uurayay xaafadii wuxuu joogaa magaaladii waliina asaga sheekh u ah waa tuulooyinka Gaarisa hoos yimaada ka mid ah waxaa dhacday tuulo kale oo tuulooyinka Gaarisa hoos yimaada ka mid ah maama weyn ah oo la qabo reer leh oo marwe ah oo hooyo ah oo xanuunsan oo farsamada dumarka isku sameeyaan sancada la sanciyay oo xanuunsan ayaa mid qaraabadeeda ah wuxuu u keeni jiray cabitaan habeen walba cabitaan iyo wax buu u keeni jiray uuna meesha gurigeedu ku qaqiili jiray oo uu qaraabe ahayna u sheekeyn jiray habeenkii dambe cabitaankii waxa ugu daray way suuxday habeenkii oo dhan buu haystay daroogu cunay salaadii asagoo dhareerka daadin oo xibinkiisa taranka taagan yahay oo maamadii kor taagan ayadana ay dhiig baxday oo silacday maadaama ay dhaawaceed baa loo yimaaday odayaal baa fariisteen sidii bay ku dhamaatay magaaladii buu la joogaa ayadana magaaladii bay joogtaa waxaan ku soo socdaa walaalayaal waxaa jira xeer oo odayaasha ku dhaqmaan oo la dejiyay 100 sano ka hor xeerkan wuxuu xadidi jiray waa dadka ay yaraayeen oo dambiyadana kufsigana uu yaraa hadda xeerkan wuxuu naas nuujinayaa dambiilayaal aad u waaweyn nimanka hadda gabadhan sidan u galay waxaa ku jira baa la yidhaahdaa niman ama nin dad mar hore kufsaday kufsi hore geystay dhalinyaradan la hadlayaa annaga ayay berri soo koreeyo ilmaheeni ay bay'adan ku soo barbaari rabaan waa inaan wax ka bedelna arrintan xitaa dadka qaar sheegitaanka arrinta in la sheego raalliga ma wayba kula yaabayaanba walaalayaalow dulmi xun baa jira dhaqan xun baa jira wax xun oo bulshada ku dhaqmato oo xeer ah oo naas nuujinaya dambiile maanta raggaas inay joodar ku jiifaan gabadhaana ay murugi iyo ciilo ooyeeso yaa soo dhib maaha arrintaasaan idiin soo gudbin rabay dhibaatooyinkaasaa jiraan dumarkeenni hiilay u baahan yihiin way ciiloodaan nin xun baa lagu daraa hadday ka sheegtaan lagama meel mariyo looma garaabo waxba lama dhaho waa arrin muruga iyo ciil badan leh arrimahan aan ku baraarugno aan kacno aan wax ka qabanno yaan diidno oonan yaanan ogolaanin haddii nin gabar kufsado inay odayaal intay isol fariistaan maslaxa yar iyo wax noocaasa lagu kala dhameeyo iyo sabeen hataa haddii magteeda la bixinayo raalli kama nihin maxaa yeele waxaan badbaadinaynaa gabdhaha kale ee uu kufsan doono ama dambiilahan uu geysan doono dhibaatooyinka kale uu geysan doono si loo badbaadiyo dambiilayaasha waa in loo ciqaabo dambiyada ay galaan waa walaalkiin cabdirasaaq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi